الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دمان أرضيدا iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo jecel xiiseeya barashada akoontiga qaybta account software QuickBooks ayagoo ku qaadan doona cashiradoodii marka lesson 20 baan sii maraynaa waana step by step cashiradii taxanaha Somali Star Online Training iyo Engineer Maxamed Bare cashiradii taxanaha marka step by step inaan ku baranno oo tilaabo cashiradeena aan baranno maanta lesson 20 waxaan ku sii qaadan doonaa sida expense-yada u bixin karno ama company-geena sidaan uga bixin karno iyadoo aan isticmaaleyno nidaamka double transaction iyadoo aan ku bixinayno waxaan bixin doonaa mushaaraad baan bixin doonaa salary waxaan kaloo bixin doonaa expense kala duwan marka tartiib baan u baran doonaa cashirada iyadoo lesson aan soo duubeyno haddii aan cashirada badino waxay noqonayaan cashiro isku dhaxyaaca marka sidaa darteed waxaan ka dhigaynaa cashiro tartiib ah oo lesson walba sidiisa gaarka loo qaato waana muhiim jiddan qofka markuu qaatana asiga ayaa laga rabaa inuu dib cashirkii u sameyn karo okay good waa isku soo dejinaya waxaan soo gudgalayaa company-geygii aan soo furanayaa company-geyga hoos u yaala waa soo gudgalay already marka cashirkeena wuxuu ka bilaabanayaa sida expense-yada u bixin karno waxaan soo baranay sidaan reportisyada u sameyn karno waxaan soo baranay balance sheet-ka company-geena uu leeyahay weyn marka waxaan arki doonaa cashiradeena inagoo tartiib u qaadan doono oo si degan oo xaalad degan ku qaadan doono ba waxaan tartiib u arkaynaa sida expenses-yada isaga bixin karno oo company-gan haddii la bixiyo la yiri expense-yo oo qarashaadka laga bixiyo waa laga bixin karaa marka si fudud baan ku bixin doonaa waana wada baran doonaa waana step by step dhamaan marka ardayda edition-ka isticmaalayna waa kuwii ugu dambeeyay edition-iska ugu caalamisan oo kuwii bogsuuleeyaan isticmaali doonaa waana very important marka cashirkaygii wuxuu ka bilaabanayaa inaan bixin karo laba qaab aan u bixin karo qaabna si fudud qaabna si kale marka waxaan bixinayaa expense ninba waxaan siinayaa mushaarkiisii oo noo shaqeeya ama haddii annaga aan nahay administrator maamulo aan ka nahay company-ga ama haddii aan ka nahay chief accountant waxaan laga codsanayaa in salary-yadii la bixiyo dadkii company-ga lahaa waxayna soo weydiinayaan salary ma bixiseen waan bixinay inaan caddeynaan rabnaa marka jeeg inaan ku bixin karno wax walba ku bixin karno okay good interbill waxaan bixinayaa salary aan qof siinayaa si tartiib ah inagoo step u siin karno oo bangigeena ka bixinayno meesha aan doonno ayaan ka bixin doonaa marka interbill markaan dhaho funder buu yaqaanaa employee waan ka dhigi karnaa oo si tartiiba employee inaan lacagaad siino employee salary baan raacinayaa salary marka employee salary inter baan iska leeyahay baan bixinayaa waan leeyahay quick add maya uu ii sit upgrade yahay employee-diina sit upgrade-san baan soo dooraneynaa employee sidii loo soo upgrade waan baranay oo step hore aan soo qaadanay marka waxaan noo soo upgrade-san markaan sameynayna interbill kaliya aan leenahay halkaan ka dooraneynaa employee wixii oo company-gan u shaqeynaya oo ah oo kala ah funders way wada garanayaan marka funder ahaan buu u soo qaadanayaa waana very important marka employee fara badan baa noo qoran employee waxaan siinaynaa expenses waxaan siinaynaa expenses waxaan ka siinaynaa akoonkeena qasnada ayaan ka siinaynaa oo cash book noo ahayd cash book ayaan dooranayaa halkaasaan lacagteena ka siinaynaa waana very important taa inaan barano step baan u baran doonaa ilaa socon marka cash bookii waa kan akoonka ka bixinaysa waa lagu weydiinayaa marka lacagta expense ahaan baan u doortay halkan check lacagtaan siinaya amountigeedaan qorayaa waxaan siinayaa waxaan bixinayaa $500 qofka ku shaqeeyo oo company-geena oo wiilka shaqaalaha ah check number baan raacinayaa marka check numberka wuxuu sii marayaa 125 buu jeegeeni sii marayaa no numberkiisa aan goynaynay lacagahan ka bixinaynay halkan memo baan raacinayaa waa mishaar baan raacinayaa halkan memo baan raacin karaa iyadaba waxaan dhihi karaa waa mishaar aan bixiyey $500 waa mishaar aan bixiyey marka save and close marka tartiibtaan u bixinayno lacagaha step by step baan u bixin karnaa marka lacagaha aan bixinay halka marka interbill ka bixino by bill waa sii dabagalaynaa waa ka sii saaraynaa oo si toos ah ayaa lacagtiisu siinaa qofkii aan ugu talagalin lacagta inaan siino $500 marka waxaan leenahay by close si tartiib ah marka by more bills waa bixin kartaa kuu soo celinayaa mar raba laakiin aan bixiyo waa ka noqday marka waxaan bixiyey oo interbill baan adeegsaday by billna waan adeegsaday marka cashiradeeni icons-ka aan adeegsanaynay tartiib hore aan soo baranay icons-ka halkaan noo yaala menu bar-kana waan ka isticmaali karnaa waan ka bixin karnaa haddii aan rabno by bill funder baan dooranaynaa hadda gabadha nadaafadda ayaan lacag siinayaa oo bill baan bixinayaa interbill baan soo dooranaya halkaas ka soo dooranayaa waxaan leeyahay nadaafadda gabadha nadaafadda aan lacag siinayaa
marka gabadhan lacag siinaya marka waxaan leeyahay waa expenses akoonka ka bixinaya ayaan sheegaya quick advance ka leeyahay waynoo setup garaysna shaqaale ahaan baan ugu xiriirinaynaa laakiin hadhowdii cash book aan ka bixinaynaa waxaa inagu leedahay lacagta inagu leedahay amountiga halkaan aan gashanaynaa $200 bay ku shaqaysaa bishii halkaan check numberkii aan ku bixinayn muxuu ahaa 125 126 baan ka dhigaynaa si tartiiba halkaan memo waan raacinaynaa waa qarashka ku baxay nadaafadda safe case taasaan u bixinaynaa tartiib marka by bill baan sii tegaynaa waa sii saarayna lacagtaas ma bixin marka by bill waa kasii dhammaystireynaa bankigeennii waan ka bixinaynaa haddaan doono cash book aan kasoo bixin karnaa marka by bill baan dhaynaa marka halkaas markay imaadana by more marka waa iska xiraynaa kan waan baranay sida lacagta loo bixin karo nadaafadda ama lacagaha expenses nalagu yeelan karo ama utilities-ka nalagu yeelan karo biyaha iyo korontada haddii aan bixinayno marka bixinta lacagaha waxaan isticmaali karnaa interbill anagoo si fudud uga bixin karnaa interbillka lacagaha oo laga bixinayo marka icons halkaan noo yaalan waan isticmaali karnaa waxaan kaloo isticmaali karnaa menu parkayna ka bixin karnaa waana tartiib casharadii taxanaha ahaa ee Somali Star Online Training iyadoo step loo baranayo ficil walbo la sameynayo si tilaabo aan u qaadeynaa si aan u barano casharadena kala duwanaa horay waxaan usoo akhriyay casharo fara badan oo tutorial ah marka waxaan sii marayaa ilaa iyo halkaas aan sii socdaa marka step u baro si fudud adoo ku baran doona marka cashirkeennii uu noo sii socdaa weli waxaan sii maraynaa step anaga oo soconno waxaan sii maraynaa inaan biilashii bixinay horay waxaan usoo akrinay cashiro kala duwan ilaa 19 cashir tutorial ah isdaba taagan horay waxaan ku faalloonay company-gan si walba uu ku shaqeynayo cashiro kala duwan oo aan soo wada baranay sida biilasha loo bixiyo ayaan sii maraynaa iyadoo cashiradeen ay noo soo gunaanadmeen haddii dadka ayna weydiiyaan company-geennii waa soo gunaanadi doontaan waana noo xiraysaan waxaan iska bedelaynaa jadwalkan ku shaqeynayno oo hadda company-gan haddii company electronic uu yahay qofkii iska lahaa inay yidhaahdo dukaan dahab baan furanayaa ama wax kale aan furanayaa waa inaan u xiri karnaa xisaabtiisa soo gunaanadnaa marka sidaa darteed cashiro kale dhowr cashir ayaa noo haray lesson 20 waxaa kasii dambeynaya dhowr cashir sidaa darteed fi amaan allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan marka ardayda step casharada uga faa'iideysta idinkoo dhammaan ka wada heli doona internetka ama haddii ay u baahan tihiin la soo xiriira lambarka si bilaasha ayaa ama si macquul ayaa ladeyn siin doonaa cashiradan oo tutorialaad imtixaan oo af Soomaali ku baxayo sidaa darteed waa anigoo Maxamed Axmed Bare waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi